shirkadda diyaaradaha Hala Airline oo diyaaradii ugu horeysay muddo 30 sano kadib qaadatay taargada diyaaradaha Soomaaliya sidoo kalena iyadoo uu ku dhagan yahay calanka Soomaaliya duulimaadyo ka sameeyay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa markii ugu horeysay ka shaqo bilowday garoonka diyaaradaha Osaka ee magaalada Gaalkacyo. Mas'uuliyiinta diyaaradda Hala Airline ayaa sheegay in shacabka reer Gaalkacyo ay soo gaarsiiyeen adeegyadooda maadaama shirkaddu ay ka shaqeyso dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Hala Airline ayaa sanadkan waxay xooga ay saaraysaa arrimaha la xiriira xajka oo maamulka shirkadda ay sheegeen waxaan bulshada Soomaaliyeed ama bulshada reer Gaalkacyo u sheegaynaa in diyaaraddu ay bilowday duulimaadyadii Gaalkacyo sidoo kale diyaaraddu waxay maaragtay si joogto ah uga shaqeyn doontaa gudaha Soomaaliya in dadku maaragtay sidaas noola socdaan. waxaan kaloo qaadi doonaa diyaaradihii internationalka ayaa falaygu ama shirkaddu bilaabi doonta oo Gaalkacyo sidoo kale Gaalkacyo laga qaadi doono. shirkaddu waxay sidoo kale qaadi doontaa duulimaadyadii xajka ee sanadkan bulshooyinka reer Gaalkacyo waxa maaragtay leenahay ku soo dhawaada gacmo furan in Hala ay tahay diyaaradii ugu horeysay ee Soomaaliya laga dijisgareeyo in ay tahay Hala taasoo si toos ah uga maaragtay uga howl bilowday shaqooyinkeedii gudaha Soomaaliya. reer Gaalkacyo waxaan leenahay waxaan soo ognahay Hala xafiiska Hala laga bilaabo maanta uu furan yahay taargadii Soomaaliya leh oo maanta soo bilaabay haddana international ah ayaa soo dhaweynaynaa. waxaan kaloo soo dhaweynaynaa shaqaalaha diyaaradda keenay ama kabariga keenay gacmo furan maadaama ay xadkii qaadayso international ay tahay. waxaan soo dhaweynaynaa ama waxaan balyeeynaa diyaaradda cusub maanta noo timid oo haddana maanta ka noqota diyaarad taarga Soomaaliyeed leh wali aan arag maanta aan arag. waxaan balyeeynaa kabarigii keenay cid ka shaqeysay weelka maleena anoo macaamiisha Hala Airline waxaan ku faraxsanahay dowladda cusub ee Hala Airline service-ka naloo sameeyay oo wanaagsan. waxaan rajaynaynaa inaan ku raaxaysano dowladda cusub Hala Airline. dadka Soomaaliyeed ay fursado ay ka heli doonaan si ay u soo xajiyaan. sidoo kale duulimaadyada gudaha dalka ay ka sameeyso shirkadda Hala marka laga soo tago ayaa sidoo kale waxay tagaysaa wadamo ay ka mid yihiin Afrika iyo Carabta si ay bulshada Soomaaliyeed ay ugu marmaan adeegsiga diyaarado badan. hadda wixii faahfaahina kala xiriir xafiiska Gaalkacyo Hala Airline lambarada shaashada ku qoran.